dhaqdhaqaaqa dekedda berbera ayaa kor u kacay dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey kadib markii ay dekedda isku soo gaadheen maraakiib iyo doonyo sida badeecado kala duwan oo isugu jira raashin bagaash gaadiid qalab dhisme iyo badeecado kale oo la mid ah shaqaalaha howlwadeennada iyo muruqmaalka dekedda berbera ee geelaha loo yaqaano ayaa haatan ku mashquulsan howlaha dejinta iyo rarista badeecadaha dekedda ka soo degaya iyo kuwa ka dhoofaya sidoo kalena qaar ka mid ah gaadiidleyda wadda gaadiidka u kala goosho gobollada iyo degmooyinka dalkan jamhuuriyadda Somaliland oo haatan dekedda berbera rar ka qaadayay ayaa iyaguna ka warramay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo badeecadaha ay ka qaadayaan dekedda berbera gaadiidkaanu nahay waa raray alaabtii baanu raraynaa si fiican bay shaqada u socotaa si wanaagsan baanu waxba dhibane waa nimco waxaan leeyahay dadka waxay islaam ilaahay ka baqeen kadib baanu joognaa gaadiidkuna si waxaan buu rarmayaa shaqaduna way fiican tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhaqdhaqaaqa dekedda berbera ee kor u kacay ayaa ku soo beegmay xilli dekedda berbera ay ka soo baxday xilligii arrafada oo xoolihii ugu badnaa ay ka dhoofeen dekedda berbera ayaa sidaa loo yahay waxay caan ku tahay dhoofka xoolaha nool kaasi oo magaceeduna uu ka kala dhacay daafaha dunida isla markaasina xoolaha ka yimaada sanadaha adduunka looga yaqaano berberi cabdisalaan xariir TV-ga qaranka Somaliland dekedda berbera